ألبوم كان عصب واحد مجلس الرق الله إمي سهيس باكوجرتا ألبوم كفرتون كوجرا لحية صوت أو عصب إيو لبهر الله قاضي فرتون أريادا ميد كمدا هيسها ألبوم كوجرا دقيستيهاشا ما مقشين كرتا محاكمة أرياداس رق الله وحكم هيس لو ما عدل رق الله وحاس كلا أبوان كوينا الحسن تلعو لحن كذا أنا أيا أسكلا مسميي هيستاس وحالي على مجلس الرق الله أريادا كمد أو حين رق الله نين كان ربو روحي بتشعليه أستجان إدربينه متكلو أوررينها أما أورحلينيا وبال ريقنا يلومي متكلو الربين بأنا جن إثبات حد بالرعدة يأرض يقول بالرفاض الرات كيف وأم بدي كرجوا ضعك لإيك رجال بافوق أنا كنت أي وحشة قوي مرهالي كليان أنت كلو عسبينها أنت كلا هل مويه شن اللحن كان جات كلا أوفرتون حكي اللحن كان ما بالله مس هراد أول حمين جرتيسها مي هراء ما الحمين جرين ألبوم كان أيام كبلابي إلهي نمارك إلهي ويقولي فرتون هذا جاريجاجي أياد وضعتها طبعا أو مجانا ده مشاحيسا من نوجع عياري كرتها جاريج دحديسة مت كم ده هي سهاسي أوكي الحمد أدبو معايا فرتون طبعا لحن كوا أديك هيس كاسي لحن كاريجا يسكنه maxaa ka jira inaad Nairobi u socoto wacdar ka dhigi rabto halka maxamed waa mahadsantahay abuu waxaan ku rajaynayaa haduu Ilaahay idmo oo ay suurta gasho inaan ciidda Nairobi aan ku soo aado oo aan tago ayaan jeclahay waa haday suurta gasho hadii kalena kulley maaragtay maran ciidda ka dheerayn baan jeclahay inaan gaaro xagga ay South Africa Nairobi Africa dan ilaa Carabta ilaa Europe waxaan jeclahay tour ilaa Australia inaan maro balse waxaan ku hormarayaa Mareykankana wad u socotaa Mareykanka laga soo socdaa fartun dhageystayaasha ku dhageysanaya ee ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee goobjooga u ahaa wacdari halka aad ka dhigtay barigii aad Nairobi tagtay maxaad leedahay xaleeyay aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii aad iyo aad baan maaragtay ilaa hadda aan maqsuud u ahay I can wait masuu karo maaragtay inta aan kaga soo noqonayo Nairobi sida quruxda badan ii soo dhaweeyaan maaragtay fankay aad baan u jeclahay inkastoo Soomaalidu meel kasta adduunka joogan ay si fiican ii soo dhaweeyaan oo ii taageeraan حتى kuwa magaalada aan ku noolahay ila degan waad maadsantahay fartuun taasi waxay ahayd fartuun Axmed Sahal fartuun Birimo oo iyadoo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada qadka telefoonka ugu waramaysay qaybta fanka ee website-ka wariyaha.com